Mayor Jacob Fry annagu waxaanu isbaranay waqtigaas 30 sano ka hora isagoo 10 jira waqtigaas aanu wada ordaynay waqtigaas aanu saaxiib ahayn waqtigaas uu Soomaali yiqiin waqtigaas xiriirkii ka soo bilaabmay ayuun baana maanta halka maraya. Not just here to endorse each other, we're here to build unity with the Mayor Jacob Fry. haddaan nahay dadka maaragtay East Africanka ama dadkeena minority-ga ah Jacob Fry arrinta uu sameeyay oo ah in lagu heshiiyay in la baabi'iyo booliiska magaalada haddii la baabi'iyo macnaheedu waxa waaye waa casarkii hal iskashi especially dadka aan hubaysnayn oo masaakiinta ah oo saacadda ugu horeysa lagu leefayo waa annaga anigu wax badan ayaan la socday Jacob Fry laakiin arrinta iigu muhiimsan oo ilaahay haatan qalbigay ka go'ilaa waxa ay tahay xilligii ramadaanka maalin cad inuu ogolaaday in halkan aadaankii salaada maghrib ay ka wada maqlaan dadka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan dunida sida ogtiin xilligaas waxa madaxweyne nacab dadkeena waa madaxweyne Donald Trump xilligiisii Jacob Fry waxa uu banaanka soo dhigtay awood taasoo uu ku xisaabtamay dadka Soomaaliyeed inay noqon doonaan kuwa isaga garab u ah una abaalguday. Please let me welcome our Mayor Jacob Fry. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Galab wanaagsan. Magaalada wa Jacob Fry. Duqa magaalada, Minneapolis. Warka asi. It is a great honor to be here with all of you tonight, my friends, my colleagues, my family. From the very first moment that I set foot in Minneapolis, there was one community that embraced me, that worked with us, that were our friends through and through, and that was the Somali community. And whether that was around special occasions, or the birth of my daughter, Farida, who I will note, I met with the Somali community a day or two after the birth of my daughter. It was right over here in Cedar Riverside. And it was asked of me, Farida, that's a Somali name. Did you name her in honor of the Somali community? And of course I said, and whether it's been momentous occasions in life or just regular day banter, Fadiku dire. The Somali community have been of the utmost importance to my life, to my wife's, and to our entire family. And for that, I want to say very clear to all of you, Mahat Senate, we appreciate you, inshallah. But the relationship, I will note, it did not begin when I moved here to Minneapolis. When I was 10 years old, I used to take the bus from where I lived down to George Mason University. And do you know of the world-class champion Somali who went to George Mason University? His name is Abdi Bile, and he is here with us today. And I remember running alone down the trail when suddenly up ahead I saw this very tall, dark, lanky figure coming towards me. And suddenly I realized, oh my goodness, that is the world champion, Abdi Bile. And if I did not take this opportunity to turn around and run alongside him, I would never forgive myself. And so it was the two of us alone on the trail. And he put his, at the time, very large hand on my 10-year-old shoulder. And he said to me, Jacob, it is not important how fast you go. It is only important that you go with purpose.
And at first, I thought that this was some famous Somali proverb, wabalayiri. But then slowly, as I got to know him, you realize that he just talks like that all of the time. Now, fast forward almost 30 years. I got a call from Mr. Abdi Bile. And he mentioned that he would be out in Minneapolis and that we should go for a run together and get a cup of coffee. And during our run, he mentioned to me his passion for working with young people, his passion around endurance sports, and that he might be interested in moving to Minneapolis himself. And so we acted quickly, working with, at the time, Councilmember Abdi Warsame, myself, the Lopet Foundation, and we brought a world champion of Somalia to Minneapolis. Today is about uniting our Somali community, uniting the entire city of Minneapolis around one cause, one vision. And I want to tell you all very clearly that I stand here and I am proud to support and endorse Councilmember Jamal Osman for re-election. Councilmember Jamal Osman is and will be a partner. He is and will be a friend. He is someone that we can work together to see progress for our Somali community and for our entire city. And the work that we have to do is of critical importance. There is an issue that I have heard above all others that is of significant importance to our Somali community here and to so many members of our city. And that is safety. Amniga, safety, security. You should be able to feel safe in your homes. You should be able to feel safe in your neighborhoods and in the park. You should be able to send your kids out to Brian Coyle to play on the playground and to kick a soccer ball without the fear of being hurt. In order to achieve safety, you need a multitude of assets. You need affordable housing. You need food. You need to make sure that you are safe at your job. We believe in a comprehensive strategy for public safety, and we also need police officers, Somali police officers in our communities. One of our extraordinary Somali police officers that we stand by and that we want to enhance those police community relations that we all know have suffered over the last several years. And so over the last year and a half, it has been a hard time. It has been tough. But I know that our city is going to rebound in extraordinary fashion. I know that the Somali community will continue to rise up. They will become not just the CEOs and the artists and the entrepreneurs of tomorrow, but those CEOs and the artists and entrepreneurs and building and property owners of right now. And so our campaign is going extremely well. Inshallah, we will win. We have the right team that we are putting together. We have leaders, women leaders of our Somali community. We have business owners from our Somali community. We have organizers. We have owners. We have people that are already doing such extraordinary work, and it would take an hour and a half to name each and every one of you. But I want to thank you, Mahat Senate, for all of the work, for all of the support that you have given us in 2017 and yes, again in 2021. Mahat Senate. tartanka wuxuu u baahan yahay inaad u diyaarsato sahaydaada. tartanku wuxuu u diyaarsan yahay inuu la yimaado midnimo. tartanku wuxuu u diyaarsan yahay inuu leeyahay vision and mission. aragti dheer iyo mid mustaqbaleed. maadaama Jamal Osman uu isaga laftigiisa aanu ku iman booskan illa xushay uu ku yimi illa doortay isagoo dhameystiraya xilligii u harsanaa mudane Abdi Warsame oo ahaa gudoomiyaha hore ee degmada lixaad.
mudane Jamaal Cismaan haatan waxaa soo gabagabowday xilligii uu dhameystiriyay Warsana Cabdi Warsame oo uu doorasho ku yimi mar labaad ayuu doonayaa inuu u tartamo maanta asaga maadaama uu meeyarku siiyay codkiisa iyo taageeradiisa asna waxa uu rabaa codkiisa iyo taageeradiisa inuu siiyo meeyarkeena magaalada Minneapolis. I stand here with you today to let you know that 12 months ago, in August 12 months ago, we were here celebrating victory. I do want to take the time to thank all my volunteers, everyone who has worked in our campaign, who wants to move forward for East African Ward 6 residents. I want to thank all of you. We are not just here to endorse each other. We're here to build unity with the Mayor Jacob Fry. I want to thank Mayor Jacob Fry for his endorsement and his support today. 12 months ago, when I got to the City Hall, no one was at the City Hall. Everyone was working at home because of the pandemic. Our city went through the biggest challenge in Minneapolis history. The murder of George Floyd, the civil unrest, everything that went wrong, we had a leader who stand up, who was with us, who saved our city from that. There are many challenges the City Hall, but Mayor Fries has been a great leader. When I got there, he was the one that welcomed me. He was the one on the phone telling me that I'm welcome here, telling me that he's the mayor for not just all Minneapolis, but the East African mayor. He's proud to say that. He has supported me for the process of learning the City Hall. When I needed guidance, when I needed virtual, making sure that I am getting resource and passing policies that will affect our community. He has been there on the phone with me. He's not just my mayor, he's also my friend. So I do want to say that we supported you and we want him to come back. So I want all of you to think about this. When Mayor spoke and I spoke, we started unity. We want unity in this community. Our voices has to go one, and that is one direction. And that is Mayor Jacob Fry and Jamal Osman in this ticket of 2021. So thank you. marka walaalayaal waxa inii sheegay aniga shaqo ayaa ii dhiibateen 12 bilood ka hor ka bacdi xilli adag xilli magaaladana gubanayso xilli nabadgelyadu xumaatay laakiin halkaas aan taagnaa mayorka ayaan pressure gareynay markay noqoto public safety-ga iyo nabadgelyada markay noqoto public safety-gu ninkan uu support gareeyaa police officers-ka Soomaalida waan la kulanay waan u baahanahay xaafadeena inaan keeno arrimaha aan ii sheegay oo issue-gayga ahaa safety-ga bas maaha guriyaha ma aha annagu guriya bas inaan kireysano guriyaasha annagu waan noo kireysayin laakiin waa inaan noqonnaa haddaan meeshaan dalkeeni uu yahay inaan home owners noqonno anigana waxyaalihii igu horeeyay oo aan sharci ku baaso asagana igu support gareeyay waxay ahaayeen inaan soo geliyo kharashna geliyo in home ownership education-ka sida guriga loo gataa dhalinyaradeena ayaa igu weynaa markaa campaign-kayga aan u tartamayay ay doorateen community-geena hal wax bay igu dhahayeen markaan dariiqa maro ilmaha maxaa u suubinaysaa ilmaheena waa baaba'een 9 bilood ka hor iyo 12 bilood ka hor hadda aan joogaba program ayaan soo saarnay mayorkan la hadlay siriga ayaan la hadlay city council memberka waxaan ku yiri idinku pandemic iyo waxa ka hadlaysaan coronavirus hadeertaan laakiin anagu pandemic-ga horey buu noo jiray waana opioid-ka ciyaalkeena kaniin ku dhimanayo taasna ina kama yeelayno kharash ayaan galiyay dadaal badan ayaan galiyay waxaana dhaqaale badan gelinay dhaqaale badan waxaan gelinay sidii carruurteena loo badbaadin lahaa tilaabadii ugu horeysay oo aan qaaday wuxuu ahaa clinic halkaas inaan la hadalno ninka guryaha aan iska leh Sherman clinic inaan hoos ka furno inaan clinic carruurteena lagu daweeyo ka furno inaan keeno program crime prevention ay dhahaan oo kharash badan uu ku baxay oo downtown-ka iyo north ka jiray
booskan uma baahna waa ordaya ragatinimo u baahan yahay in loo istaago u baahan yahay in dadkan sida howlka wax jooga lala qaybsado u baahan yahay ummadeenana waxay u baahan tahay daacad bay u baahan tahay qof daacad ay u baahan tahay qofku dad iskugu mid yihiin bay u baahan tahay resource badan iyo mataqaanaa dadaal badan bay xaafadan u baahan tahay ma garateen programyo badan ayaa ciyaalka u keen hadda waa aragteen 15 dhalinyaro oo dhar maraysa dhar qabta yellow ah oo xaafada wareegaysa programka kama jirjir magaalada hadda way wareegayaan ilmaheenii bay la hadlayaan ilmaheenii bay waxay ku dhahayaan mataqaanaa maanta sirr ma u baahan tahay maanta ma u baahan tahay dhakhtar u tagtay ilmuhu wax badan uma baahna ilmaha ayaa farta lagu fiiqay dal waxaa nimid challenge-giisu uu badan yahay laakiin waa inaan ka warqabnaa waa inaan policy markaan dejinayno sharci markaan dejinayno future-keena war anagu maanta ayaana ka fakarin ilmaheena waa inaan wadadii caddeed ay marayaan u dhisnaa xaafadan nabadgelyaan ka dhigay nabadgelyadaana soo ku soconaysaa minneapolis meel walba aad tagtay dhibaato badan baa ka jirta xaafadaheena laakiin dhibaato waa ka jirtaa laakiin sida riverside maxay hadda dhibaato isugu jirta maxaa halkaa nabad ugu fadhinaa sababta ugu fadhina waxaa waaye dadaal aan marayno annagu marka walaalayaal waxaan ku baraarujinayaa erigana ku soo noqonayaa midnimada ha la wado midnimada ha la wado midnimada haddaana wada waxaa dhacaysa 9 bilood baa booska fadhida ka kacnaa kaa fiicane waxaas Soomaaliya uga soo tagnay mana soconayso hal meel baan u soconaa assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh meeyarku isagaa inoo sheegay oo ku dheeraan maayo waqtigaanu isbarannay 30 sano iyo ka hor da'duun bay xoogay taabanaysaa waan u malaynayaa laakiin haddii weli la tugtug leeyahay alxamdulillah ma sha Allah runtii waxa weeye Mayor Jacob Fry annagu waxaanu isbarannay waqtigaas 30 sano ka hor isagoo 10 jira waqtigaasaanu wada ordaynay waqtigaasaanu saaxiib ahayn waqtigaasuu Soomaali yiqiin waqtigaas xiriirkii ka soo bilaabmay ayuun baana maanta halkaa maraya markaa runtii imaatikaygii magaaladana siduu idinku sheegay ilaahay ka sokoo isaga u sabab ahaa markii aanu isu nimi isaga ayay ka timi anigu interest-waan muujiyey inaan jeclaystay ani magaaladan way ka dhacaysaa community aad u ballaaran oo qiimo badan baa noo jooga waan danaynayaa laakiin runtii geesinimada iyo go'aanka iyo dhiirigelinta iyo ka dhabaynta intaba isagaa qaatay oo yiri dadka qiimaha leh ee Soomaalida ahi inay magaalada iyada yimaadaan ku soo bataan aan community-ga ugu wanaagsan noqono qurba joogi meel ay joogtaba Soomaalida kuwa ugu wanaagsan anaa jecel markaa sidaas ayaad magaalada ku imanaysaa sidii baana ku imi programmaanu samaynay meesha loo badan u shaqeeyo iminka 9 group ayaan tababaraa ma doonayno waxa weeye hadafkii iyo aragtidii aanu meeyarka wada qaadanay inay noqoto mid khasaarta dadkeena waxa weeye inuu la fahansiiyo caafimaadka iyo isboortiga iyo dhalinyaradeenna sidii loogu badbaadin lahaa iyo faa'iidada uu isboortigu bini aadamka u leeyahay waxa dhacday guulo badan baan horta ka gaadhnay anigu hadda waxa laga yaabaa waxyaabaha qaarkood inay aragoo dadka internetka iyo meel walba wax geliyay meeyay anigoo privacy-ga dawraya dadka aan tababaro markii samarkii dhamaaday oo winterkii la gaadhay baa qof waliba yiri de waa boqolaal waxaan tababaraa bay yiraahdeen de macallin waa inoo samarka dambe waa waqtigii waa dhamaaday soo maaha markaasaan ma dhamaane waxa la gelayaa iskii baa la gelayaa wixii winterka la sameyn jiray baa la gelayaa waxa weeye waynaad barataan sida state-ka gobolkan loogu noolaado meeyarku sida uu taariikhda idinku sheegay waxa ay ka marakacaysaa inuu weligiiba Soomaalida yaqaanay inuu weligiiba Soomaalida saaxiib la ahaa inuu weligiiba Soomaalida xushmad iyo wanaag iyo qadarin u hayay inuu mar walba inuu wax u qabto iyo ay daacad ka tahay aanay iska ahayn oo de maalinta siyaasadda iyo de maalinta foodka lagu ridayo marka inta yada sida u taqaanay aniga iyo Cabdi Warsame iyo Cabdi Saalax iyo dadka la midka ah oo dhan inta la soo shaqeysay oo dhan haddii aan anagu wanaaga iyo Soomaali jacaylka iyo saaxiibtinimada qaaliga ah iyo tixgelinta aanan ka soo arag anaga bay idin oran lahayn iska daaya marka waxa weeye runtii meeyarka waa meeyarkeeni waxa weeye kalsoonida iyo saaxiibtinimadaas aan noo haynaa waxaan jecelahay inaad aad iyo aad isugu taagtaan muddada yar ee 2 bilooda
wax kasta hiil iyo hooba waxaynu la qaban karno aynu la qabanno soomaaliduna waxa weeye laba waxba dee dad gobihii waxa weeye abaal waa galaan waa gudaan wax walbana way awoodaan taa soomaalidu way leedahay garashadeedana way leedahay soomaalida siyaasad hadda way u bislaatayo dee waynu aragnay yacni magaalada tan madax baa u imanaysay ama dad badan baa soomaali wax ka sheega ama kuwa u imanaya inay soomaalida caayaan ama hablaheennaba caayaan dee markaa saaxiibadeen iyo kuwa cadowgeenna ah ama dhinaceenna aan ahayn dee waynuna kala garannaa kalana doorannaa markaa runtii aad iyo aad baan meeyarka u soo dhawaynayaa iyo jamaalba aan guul ugu rajaynayaa 4 sano oo dambe 4 sano kale 4 sano kale 4 sano kale iyo guul iyo jamaal oo isna soo noqda oo isna afartiisa halkan ka qaata markan intii hore waxay ahayd ku barasho aad ku barateen inuu u qalmo booskaas uu hadda sanadka soo hayay aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa Mayor, yeah, thank you so much. I really treasure your friendship and how much you appreciate and respect the Somalis and see as your community, and you have the broadness and the confidence just to say in front of everyone, I'm a mayor of East African community, but knowing that you are the mayor of this city and you had a real serious challenge this year and you overcame, and everybody is proud of what you have done, and inshallah you will get another 4 years and we are supporting you all the way. Thank you so much. Welcome. Thank you so much. horta khayru nnaas dadka bini'aadanka oo dhan baa lala hadlaya anfacuhum binnaas. But in English, if say some word this for this hadith, the meanings of hadith, the best people to most useful to others. شوف فريق كوغوليسو halkan kaaga aad hore ugu soo guuleysatay ee maayir ku tahay ya Jamaal Cusmaanna waxaan leenahay adiguna kursiga aad maanta ku fadhideen la kaama celiyo Allah kugu guuleeyo warintiisa soo kama dambeysaan wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. waxaana marnaba aan ilaawi karinin magaaladeena waagi dhaweeyta markay dhibaatadu ka dhacday oo sida xun maaragtay magaaladu u olashay oo loo baabi'iyay Jacob Farais iyo maaragtay Jamaal waxay ahaayeen dadkii u istaagay waxaan xasuustaa anoo guriga ka bixin 24 hours waxaan ku dhaganaa meediyahan la socday dadkaas habeen iyo maalin ma seexan jirin xaafiiskooda ayay qado iyo quraac iyo casho ku cuni jireen inta kale waxay taagnaayeen halkaas taas waxaa sii dheer oo annaga haddaan nahay dadka maaragtay East Africanka ama dadkeena minority-ga ah Jacob Farais arrinta uu sameeyay oo ah in lagu heshiiyay in la baabi'iyo booliiska magaalada haddii la baabi'iyo macnaheedu waxa waaye waa casarkii hal iskasho especially dadka aan hubaysnayn oo masaakiinta ah oo saacadda ugu horeysa lagu leefayo waa annaga taas waa taariikh aan la ilaawi karinin Jacob Faraisna sideedana qofka looma taageero hebel waa aqaanaa hebel waa ixiga hebel waa saan qofka wax ku anfacayo oo wax ku tarayo oo wax ku qaban karo ayaa loo baahan yahay in la taageero